adduunkan aanu ku noolnahay qof walba oo jooga mar walba waxa uu u baahan yahay lamaano iyo qof ku weheliya nolosha. Soomaaliduna waa dadka ugu wanaagsan ee reero yeesho. Inkastoo muddooyinkii hore Soomaalida aysan noloshooda soo bandhigi jirin oo aysan bannaanka keeni jirin, haddana muddooyinkii u dambeeyay social media intii ay Soomaali ku biirtay waxaan aragnay qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo nolosha ay haystaan ku faraxsan. Noloshaas oo mar walba ku dhiirigelinaysa aadna u qurux badan. Ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto waa mid dhaqan iyo diinba leh, waana mid aanan ka gudbin xuduudaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhigay. Halkan waxaan kusoo gudbin doonaa insha Allah bidnaa al-kariim 5 qoys oo social media qaasatan barta YouTube-ka caanka ah dadkuna ay aad ugu taxan yihiin ayna jecel yihiin daawashada muuqaaladooda. Fadlan nala soco oo nala soo daawo. soo dhawaada barnaamijkeena insha Allah bidnaa al-kariim. barnaamijkan ogama hadli doono maxaa qaldan maxaa saxan ama afaar iyo family qoysas arrimahooda ma guda gali doono insha Allah bidnaa al-kariim. mar walba waxa fiican inaad ahaataa qof positive ah, macnaha dhanka wanaagsan oo kaliya wax ka arko. Soomaalida inta badan bariyahan dambo waxay noqdeen dad inta badan negative wax ugu fikira. Soomaalida oo dhan maahan laakiin waa dad kamid ah. waxaad arkaysaa dad aad iskugu faraxsan noloshoodu qurux badan tahay wixii gurigooda ka jira Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og. anaga waxaan xukumaynaa muuqaalkaas qoro ee anaga ma guda galayno qofka shakhsiyadiisa hoose iyo waxa u qarsoon. inta badan markii aad akhrinaysid commentiyada Soomaalidu kuma cajab gelinayaan kumana farxaysid, mana ahan kuwa dhiirigelinaya nolosha aadanaha ee quruxda badan. haddaba kusoo dhawaada barnaamijkeena ana guda galno. qoyska ugu horeeya aan soo qaban doono barta YouTube-kana aad loogu taxan yahay muuqaaladoodana aad loo daawado waa bahda Murtihage ee Qadar iyo Fahima. waa dad aad noloshoodu u macaan tahay, mar walbana barnaamijyadooda ay soo bandhigaan taariikhaha noloshooda inta badan hadiyada iyo waxyaabo wanaagsanna mar walba isguddoonsiiyo. waa dad aad u farxad badan, aad u qurux badan, familkoodu aad u wanaagsan yahay. bartan YouTube-kana noogu soo bandhigo taariikh nololeedyo iyo barnaamijyo waaye ka sheekeynayo kuwaas oo marna ku khayro gelinayo marna ku farxad gelinayo. laakiin nasiib darro Soomaalida inta badan social media sidaan horey u sheegnay ama barnaamijkeena hore ee social media iyo Soomaalida baan uga soo hadalnay waa kuwo dhanka negative u fikira maalmahan dambe, inkastoo inta wanaagsan ay badan yihiin. waxaan leenahay familkaas masha Allah famil aad u wanaagsan waayo, Allahana dhowro, waana famil ku dayasho mudan runtii markii dhanka wanaagsan aan mar walba wax ka fiirino. Assalaamu alaykum wa idin salaamay. idin salaamina waa fiicantihiin anagana fiicannahay insha Allah waxaan rabnaa inaan maanta idin sheego. horta meel hadda waxaa joognaa shaqo ah. shaqooyinka markay noo dhammaadaan hawshayna insha Allah waxaan rabnaa video dhamaystiran soo duubno oo ah waxaan bilaabaynaa sheeko cajiib ah oo taxano noqon doonta insha Allah. sheeko joogto ah oo insha qoyska labaad ama reerka labaad ee bartan YouTube-ka caanka ka ah ayaan soo qabanayno waa Adna iyo Maxamed Saxaaf. janaalka Adna Channel runtii waa family dhameystiran ama qoys dhameystiran, farxad badan. dadkaas Malaysia joogana soo dhaweeya mar walba. YouTuber badan oo xaggaas iyo Malaysia jooga waa ay soo dhaweeyaan runtii. gurigoodana waa guri social ah. waa dad aad u farxad badan, u wanaagsan. inta anigaan ka arkay bartan YouTube-ka waa dad wanaagsan ayaga iyo ciyaalkoogaba runtii, waana dadka laga xushmeeyo bartan YouTube-ka. Adna waa gabar caawisa gabdhaha Soomaaliyeed una soo bandhigta barnaamijyo cunto karin ama sida iclaan u marsan lahayn barnaamijyo kale oo faa'iidooyin u leh masha Allah. يا بلال أمورته زائد بعوضة qoyska saddexaad ee halkan aan ku soo bandhigayno YouTube-kana caanka ah dadkuna ay aad ugu taxan yihiin waa Laakaha Media Bro. runtii waa family aad u qurux badan, Cimraan iyo Baarlin. dadkana mar walba ka qosliyo barnaamijyo waraysiyo iyo sameeyana. waa YouTube ay ku xiran yihiin malaayiin Soomaali ah ay daawadaan masha Allah. YouTube-kooda aad ayuu u wanaagsan yahay, waana dad bartan YouTube-ka runtii magac ka sameeyay aadna u sharaf badan masha Allah. intii aan arkayayna waa dad mar walba isku duuban, kaftama, iscaawiyo masha Allah. ani adiga saaxiib baan ma faadin ama waxaan noqonaysaa nin aan loof aan ku ahay. maxaa tirina waxaan rabaa rag ma ogta ilaa gabdhahooda u heesaan oo dumarkooda u heesaan dumarkooda ilaa u heesaan baybidooda ilaa u heesaan qoyska afraad ayaan soo qabanay bartan YouTube-kana caanka ah waa The Way Family. Yasmin iyo Yaxya waa dad bartan YouTube-ka ayagana majaajilooyin iyo sheekooyin noogu soo gudbiya. wax dhaqan xumo ah ama hadda Soomaalida dhexdeeda ay dhibsataan inta badan ma soo gudbiyaan, inta badan yaandhiina ma soo gudbiyaan masha Allah. dad aad u farxad badan, noloshooda caadigaana mar walba YouTube-ka si sarbeeban ama si toosaba noogu soo bandhigo ayagoo farxad iyo wanaag ay ka wada muuqato. waxaan leenahay familkaas masha Allah family aad wanaagsan. idinka iyo ciyaalkiina waa Ilaahay barakeeyo. rahmatullahi wa barakatuh. بعد واي فاميلي oo idin leh صلاة شبعان
بليز هدي aad janaalkeen ku cusub tahay subscribe haddii aad videoga daawanaysid fadlan waxaan ka codsanaynaa like insha Allah si share garee comment naqsa bixi waana insha maasantiin allah faamilka u dambeeya ama qoyska u dambeeya ee bartan youtube-ka caanka ka magacana ka sameeyey aanana ku mashquulin inta badan dadka kale waa boqorka gembiska iyo xaaskiisa Gabriel Manyo waa dad bartan youtube-ka ayagana caanka magacana ka sameeyey runtii social media-na muddo kooban ku jira haatan khaasatan barta youtube-ka maasha Allah magacoodana uu hormaray Soomaalidana caanka aanana ku mashquulin bulshada inteeda kale waa dad ayaga oo kaliya noloshooda ka sheekeeya wanaagsan oo maasha Allah dhanka wanaagsan mar walba ka fiiriya asxaabta ku soo dhawaada boqor gembiska iyo gabar Maya hay waan soo laawan laakiin sheekada intiin gal lahayn saxiibayaal waxaan ilahay subscribe ka taa soo saarin subscribe ka dha ka soo saarin miskal gabar Maya selena dha disbani waxaan leenahay qoysaskaas dhammaantood Allah isku kiin barakeeyo bartan youtube-kana wax wanaagsan inaad ku soo bandhigtaan mar walba ku dadaala saan anaga nooga faa'iideysano idinkana ay kugu noqoto wanaag sababtoo ah waxaad tihiin dad nolosha dhammaystiro sababtoo ah markii aad reer leedahay waxaad og tahay dhammaan nolosha waxa ay tahay xaqiiqooyin badan oo ka qarsoon dhalinyarada aanan weli reeraha yeelan ayaad idinka ogtihiin waxaan ka codsan lahayn inaad mar walba noo soo gudbisaan sida haddaba aad noogu soo gudbinaysaan barnaamijyo ka tayo badan kuwan kana qurux badan maasha Allah horay u socdo waxaa afeefiga ah halkan uguma kala gudbinin sida ay u kala wanaagsan yihiin dhammaantood way wanaagsan yihiin kala horreysiinta waa magaca oo afka soo qabtay iyo sida yanigi u kala horeeyeen dhammaantood madaxa ay noo saaran yihiin haddii aan nahay Soomaalina waan jecelnahay dadka wanaagsan ee horumarka jecel guuleysta waxaan leenahay haddii aan nahay baaxda xogaha media horay u socdo waa dadaasheen wax wanaagsan bulshada waad u qabateen intaasna ka sii badiya oo wax wanaagsan oo qurux badan oo dadka ay ku farxaana u soo bandhiga waxaan idinkaga digayaa inaysan in la tagin adduunkan hogaamiyaal aad noqotaan qofka wax hogaamin kara waa midka mar walba positive ka waxaan leeyahay hadallada leeyahay ama commentiyada in kugu soo qorayaan dadka qaarkood dhag ha u dhigina ha u joojinina wixii xumaan ay idin sheegaan qaata oo markaas ayada idinka xataa aad qirsantiin inay ka qaldan tahay wixii wanaag ana noo sii wada ha u joojinina sababtoo ah bulsho walba oo meel ku nool kuwa fiicanna waa laga helaa kuwa xunna waa laga helaa mana ahan inaad raacid mar walba kuwa xun ayagoo ay joogaan kuwa fiican waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena xogaha media subscribe saar una sii share garaa asxaabtaada insha Allah mar walbana waxaan la wadaagi doonaa muuqaalo aad u qurux badan dhiirigelinna waa bulshada